waxaan leeyahay walaalaha muxsanaadka meel kasta joogtaan aan isku naxariisano aan is ogaano kii jilicsan iyo kii baahan iyo kii buko iyo kii liito ilaahay wuu noo gargaarayaa ilaahay wuu noo gargaarayaa hawshaydu way badan tahay harad waan qabaa xaaladu way qurux badan yihiin ilaahay idinkana aakhriya adduunka ha idin wanaajiyo midaan magaciisa iyo midaan magaciisa haynba ilaahay ha idin wanaajiyo dhulka la iiga keenay ee la iiga soo qaaday halka la iigu keenay abdaal ilaahay caawiyo janno yarxamaha siiyo gudulkeen ba ilaahay inoo naxariisto risqana doolka Allah idinka qaado idilkeen ba Allah inoo wanaajiyo kuwan tan soo gaarsiisayna Allah barakeeyo kuwa noo keenay amaal Faysal gartay macaariiftiisa inta waan u duceeyay waa maliyun khayra maxamed iga gudoon walaal raashinkan dad walaalo muxsanaad ah ayaa ii ka soo wakiishtay oo Faysal kamid yahay oo walaalkay Faysalna igu yiri raashin degdeg ah uge waa Bilson bisha Ramadaan khayr kale ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay iyagana halkay ka soo saareen ilaahay barakada rasuulka u geliyo ilaahay insha Allah dad iyo dunyaba ilaahay ha u barakeeyo ilaahay waxaan ka baryayaa insha Allah habeen saac talaabada qaadaba ilaahay baan khayr uga soo baryayaa caafimaad waanu ka gudoomanay aad baan uga gudoomanay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh se waxaan u baahanay walaalo in kasi oo kale inaan noo sii qabataan aad baan walaal baahideedu iskaga fara badan tahay taangiyaal baan u baahanay haraad baa walaal xagaa baan ku jirnaa xagaa wax la yiraahdo nagu soo socdo walaalo waxaan ku meesha way waaya badan tahay biyaheeduna waa biyo dheer biyo male walaal biyo waxaan ku xagaayo hore haraad nagu dili gaaray dabeedna walaal waxaan aad uga ilaahay uga rajaynayaa walaal insha Allah in intaana noo soo qabataan taangiyada iyo waxaan insha Allah bidmillaahi kariim aad baan walaal idinka gudoomanay amaal aad baan uga gudoomanay aad baan mahad ugu haynaa walaal iyadana ilaahay baa mahad iska leh intaasay walaal ilaahay caafimaad iyo khayr ha siiyo intaasay noo soo xarbaday noo soconaysay nagu soo warwareysay ilaahay walaal cadowgeeda ha jabiyo insha Allah bidmillaahi kariim ilaahay caafimaad sareecan ha siiyo saas iyo walaal si khayr leh insha Allah bidmillaahi kariim walaalahayga xasanaadka halkay kala joogaan ba ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay insha Allah bidmillaahi kariim inuu ilaahay waxaan ku yiri darajo khayr leh inuu ilaahay ku siiyo insha Allah ilaah baa baahida qaado ilaah baan irsaaqad xalaala weydiisanay ilaah baan waxaan u weydiiyay reeraheenan reer miyiga ah irsaaqad xalaala caafimaad cimri dheer iyo cibaadad suban hooyo waxaan rabaa raashinkan waxa ii soo wakiishtay walaalo muxsinaad ah ii soo dhiibay wuxuu igu yiri walaalkay Faysal raashin degdeg ah uge waa Bilson raashin degdeg ah uge ha ku Soomaali hooyo waxaan rabaa inaad iga gudoontid raashinkan oo inii soo wakiishtay walaalkay Faysalna ay soo wakiishteen walaalo muxsinaad ah hooyo waxaan rabaa inaad iga gudoontid hayo hooyo macaan bismillaahir rahmaanir rahiim walaalaha iyaga arsaaqadan noo soo diray ilaahay waxaan u barinay oonu ilaahay u baryeena in ilaahay halkay ka soo baxday iyo dadka sida iyo dadkan haddii la yiraahdo bacadka noo maraya in ilaahay barakeeyo barakada rasuulka ilaahay iyo dadka Faysal gartoon in isna ilaahay sanaad oo baraka qaba oo duca qaba in waxaanu doonaynaa walaalayaal waanu haraasanay waanu jilcisanay dad waaweyn baanu waanu indhaha waxbaanu ka qabnaa in haddii ilaahay ka dhigo in walaalayaal naloo keeno taangiyo haraad baan nahaya jaraykaan baanu qaadanaa jaraykaanka waxaanu la maraa dhul aan dhaweyn hooyo saasaanu idiin baryaynaa tasida ee waxa soo hanfiya iyo waxa soo debada iyo waxa soo dhibaata noo maraysa dad iyo xoolo in alla barakeeyo awlaada in alla u sakhiro amalkeeda in alla suubiyo ariga in aan alla ku baasayn ilaahay saasaanu u baryaynaa kasida wadada isna soo maray la daalikaanu ka dhigaynaa alla ayay alla idin barakeeyo barakada rasuulka ya saasaanu idin baryaynaa waa Xaliima waa maamadii ka xanuunsanaysa inanta Ethiopia intay geysay la yiri waxba lagama qaban karo aan ugu booqday isbitaalka inji aan ka soo duubay maalin dhaweedna aan ugu yimid tuulada Abdaal haddana waxaan dul joogaa waa inantii
oo la yiri meeshay dul ku way dhacday laygu yiri anoo xilligii raashinka aan guddoonsiinayay ee ii soo wakashteen walaalaha muxsanaadka oo Faysal ugu horeeyo waxaan rabaa Xaliimo raashinkan oo adiga raashinkan waxaan rabaa raashinkan waxa ii soo wakashteen walaalaha muxsanaada oo wakiilka yahay Faysalna aniga ii soo wakashtay inaad iga guddootid اللهم صل على محمد ولا ليال وحنا هاي حليمة عبد حرسي أمال حسن أمال محمد حسن أي راشين كاي كنتي وحنا هاي أنا قلنا أنتي أي أنتي كحنو سنة سي عاديات بين دينك قدونتي فيصل ولا على عاد بين دينك قدونتي راشين كانوا كنتين waxaan ku uri ilaahay baan baahanina inta ummadoo iska baahi badan tahay waxaan doonayaa walaalo aad iyo aad baan idin salaamayaa meel kasta aad joogtaan waxaan noo keenteena waxaan ku uri waan idinka gudoominay ilaahay arsaaqada mawjid ha idinka dhigo ilaahay amalka ha idin waasiyo wax khayr qaba ilaahay ha idin siiyo ilaahay cadaabta ha idin kala xishoodo ilaahay waxaan idin barayaa meel kasta aad joogtaan kii arsaaqada noo soo dhiibay iyo kii soo qaaday iyo kii barnaamijka noo soo jeediyay in daba in ilaahay cadaabta kala xishoodo waxsan ilaahay inuu siiyo in ilaahay arsaaqada aanu miisin janna firdawsa inuu ilaahay ka waraabiyo waxsan ilaahay inuu siiyo arsaaqada inuu ilaahay u barakeeyo awlaadda inuu ilaahay u barakeeyo wax wal oo halku ka cilinayay inuu ilaahay ka ciil diro waayo waanu baahnayn aad iyo aad baanu u baahnayn waa kuwa baahidayadii waxaan ku wax noogu soo qabtay waa qoyskii shanaad ee aan leeyahay raashinka walaalo muxsanaada ayaa igu soo dhiibay oo ugu horeeyo walaalkay Faysal Karatay oo wakiil iga soo dhigay waxaan rabaa inaad iga guddoontaan raashinkan bismillaahir rahmaanir rahiim waan ka guddoominay walaalo muxsanaadka ay raashinka noo soo dhiibay waan soo barakacnay biyaan ku snimi waxaan u soo gurnay abdaal guriga kuma haysanayo meel aan tagno waxa raashin ma haysano labada ciyaal waan leeyahay labada ciyaal wala igu qalay waxba ma qaadan karo dadkan biyaha kale dhigo ma soo qaadan karo waxaan doonayaa walaalaha muxsanaadka inay noo soo naxariistaan waxa noo soo dhiibina inay noo soo kordhiyaan waxa ilaahay khayr qaba siiyo ayabaan ilaahay wax khayr qaba inuu noogu soo dhiibaa baan u rajaynaynaa ilaahay barakeeyo meel kasta ka yimaadeen